بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha inaga mudan ee ku xiran channelkan YouTube-ka Ismaaciil Aqila ku soo dhawaada barnaamijkeena taariikhda saxaabada waan idinkugu soo gudbino insha Allah taala taariikhda saxaabada maanta se barnaamijkeena hadduu rabbi ka raali noqdo waxaan ku soo qaadan doonaa xaaskii Abul Haytham ibn at-Tayhani ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah taala kahor inta barnaamijka gudagalin fadlan walaal haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar say dhiirigelin inagu noqoto sidoo kale like to saar barnaamijyadeena haddii aad ka heshay siina share garay si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino hadduu rabbi weyne raali ka noqdo insha Allah taala gambaleelka furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo gudbino sida hordhaca aan idinkugu sheegayba maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena nolosha waa taariikhda saxaabada aan iraahday xaaskii Abul Haytham ibn at-Tayhani maalin ayaa waxaa soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam mise waxaa ka hor yimid Abu Bakar radiyallahu anhu markaasuu ku dhahay rasuulka maxaa ku soo bixiyay Abu Bakarow wuxuu ku dhahay gaajo rasuulkii Ilaahayow kadibna wuxuu u yimid Umar ibn Khitaab markaasuu ku dhahay maxaa ku soo bixiyay Umar wuxuuna yiri gaajo rasuulkii Ilaahayow markaasuu nabigana ku dhahay anigana waxaa isoo saaray gaajo dabadeedna saddexdooda oo wada socda ayaa u tagay saxaabiga reer Ansaari gurigiisa Abul Haytham ibn at-Tayhani saxaabigaasna wuxuu lahaa beer weyn iyo ari fara badan waxaana albaabkii ka furtay xaaskii Abul Haytham waxay ku dhaheen meeyda ama aaway Abul Haytham waxayna tiri rasuulkii Ilaahay wuu baxay si uu biyo noogu soo dhaamiyo halkiiba wax yar kuma nagaaninba waxaa yimid Abul Haytham markaasuu yiri Ilaahay baa mahadda iska leh maanta maxaa ka wanaagsan martida kadibna gogol ayuu u dhigay geed hoostiisa wuxuuna u keenay timir noocyo kala duwan leh waanu kala dooran siiyey markaasuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaah baan ku dhaartee waa had ama hoos qabow timir wanaagsan iyo biyo qabow waa nimcada la idin weydiinayo Abul Haytham wuxuu u tagay arigiisa isagoo raba inuu gowraco neef shilis oo buuran balse rasuulka ku dhahay ha gowracin neefkan dararsan oo caanaha leh kadibna wuxuu qalay ceysaan wuxuuna hilibkii u keenay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo labadiisa saxaabi Abu Bakar iyo Umar radiyallahu anhu way cuneen oo ay ka dhargeen markaasuu rasuulka ku dhahay Abul Haytham cid ku adeegta ma haysataa wuxuuna ku dhahay maya rasuulkii Ilaahay wuxuuna ku dhahay ii kaali marka ugu horeysa ee maxaabiis timaado kadibna nabiga waxaa u yimid laba nin oo adoomo ahaa markaasuu u yeeray Abul Haytham ibn at-Tayhani wuxuuna ku dhahay labada nin kala dooro kan ku adeegaya wuxuuna ku dhahay Abul Haytham adiga ii door rasuulkii Ilaahay wuxuuna ku dhahay ruuxa lala tashado waa midka la aaminay ee kan qaado sababtoo ah wuu tukadaa salaad fiican oo lana dhaqan si wanaagsan Abul Haytham waa baxay wuxuuna warkii u sheegay xaaskiisa markaasay ku tiri ma dhamaystiraysid wixii rasuulka ku dardaarmay ilaa aad ka xoraysid ninka adoonka ah kadibna wuxuu dhahay xor baad u tahay wajiga Ilaahay markaasuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam maqlay warkii haweenaydaasi ayuu dhahay ma jiro nabi la soo diray ama khaliif hadduu jiro wuxuu leeyahay laba saaxiib hoose oo midkood fara wanaaga kan kalena ka reeba xumaanta halka kan kalena uu gaboodfalayo ee ciddii laga ilaaliya saaxiibada hoose ee xun kaas ayaa dhoorsoon waxaa cajiiba qaabka haweenaydaasi saalixadda ah ay u hirgelisay fariintii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahayd si wanaagsan ula dhaqma kadibna odaygeedii ku gawaabisay khayrka oo ay fartay inuu xoreeyo adoonka subxaanallah guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doono waa saaxiibkiina walaalkiin Ismaaciil Aqil oo idinkaga tagaya sida iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh